بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومركل يولا الكتاب كأني عقيدة المسلمين سؤالها جوابها ككوبنا وأن أسوكو كوبين سي أمد أغفى إذيستان. سؤال تكلم كهذا عن التوصل، توصل كهذا بالأنبياء، أنبياء لغو توصله. جواب يجوز وحا بنان التوصل توصل بهم أنبياء لغو توصل بالإجماع، سيدا علماء إسلام كو إجماعين وكو كلمين ووحبنان محال لها مركة توصل. والتوصل توصل هو أصغو ضلب جلب منفعة لسوجي ضلب كيدا واي أو اندفاع مضرة دب أو متقانا لإسكعي ليوي لبضب من الله إلهي حقي سكاء هذا بذكر نبي شيغستي سأو ولي متقانا لشيغو إكراما أيضو لكرامين للمتوصل به قفك لغو توصل مع اعتقاد قفك أسوى آميسا أن الله إلهي هو الضار متك وحدب إنو يهي والنافع متك وحنفع على الحقيقة حقيقة. قال الله تعالى إلهي أيدي ساء دليل وابتقوا إليه الوسيلة، وابتقوا ضلب إليه إلى الله إلهي حقي سأل وسيلة وسيلة كضلب. سورة المائدة. الحديث حديث كنبينا ودليل نبي ويري الرسول نبي علمه بري الأعمى ننكي إن دولها أن يتوصل إنه كتوصله ففعله فلي الأعمى قفك إن دولها في غير حضرة النبي نبي حضرتي سأما ماشي سميلا نهين بو أرن كان كسمي يدعادي لفري فرد الله بصره إليه إلهي ببصر كيسي يأرقيسي أسو عليه سبحانه وتعالى. marka walaal tawassulka anbiyada lagu tawasulayo waa banaayahay waana ijmaaca culimada islaamka. Tawassul waxa la yiraahdaa macnihiisa qofku manfaco iyo wanaag uu soo jiito, madarra iyo dib uu iska dhiciyo ilaahay xaqiisa asagoo u sheeganaya, laakiin uu xusayo nabi ama wali asagoo karaamaynayo qofka mutawassilka ah oo mataqaana uu ku tawasulayo cibaado iyo wanaag iyo khayr uu ku tuhmayo walaalayaal, asagoo caqiidaysan xaqiiqa ahaan ilaahay inuu wax siin karo waxna ka celin karo subhanahu wa ta'ala. laakiin macnuhu ma aha tawassulku qofkan illa caabudaya ma ahan, waa saas weeye walaalayaal. saxaabadii nabiga ka dhacday Uthman ibn Hunayf oo kale nabigu ku tawasulay alayhi salatu wasalaam, nabiga duca baray waqtigii nabiga ka soko waqtigii Sayyid Uthman buu hadana ducadii akhriyay uu ku tawasulay nabiga alayhi salatu wasalaam, ilaahay baana aragiisi u soo celiyay. saas waay. su'aal takallam ka hadal aan tawassul ka hadal bil awliya, awliyada lagu tawasulo. jawaab yajuusu waxa banaan at-tawassul bihim, tawassul lagu tawasulo awliyada waa banaan tahay, walaa yucrafu mana la garanaya fi dhalika arrinka mukhalifun qof khilaafsan oo min ahli al-haqq dadka culimada ah salafan wa khalafan kuwii hore iyo kuwii dambaba labadaba waa isku waafaqsan yihiin. الحديث حديث كنبينا ودليل أن عمر سيد عمر توسل وحكو توسل بالعباس، عباس ونبي أديركيس قائلا أسقوله اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا، اللهم يا الله يو إنا أنغو نتوسل وانكو توسلنا إليك أديك حقاق بعم نبينا نبينا أديركيس. رواه البخاري. قيبتي وروحي هيد أنبياء qaybtan dambana waa awliyada ilaahay, wali waxa la yiraahdaa qofka waajibaadka ee bogudanaya, xumaantana ka haraaya, daacada ilaahayna ku toosan, sunnooyinkana ku daraaya, xaraamtana iska ilaalinaya, qofkaas la dhahaa sidoo ilaahay quraankiisa ku sheegay. awliyaduna waa jirtaa qofkii la colaytamana ilaahay baa la colaytamaya subhanahu wa ta'ala. miyaarka la saaraya qofkana waxa waaye iyo miisaanka inuu yahay qof shariicada islaamka ku toosan. tawassulka marka awliyadu waa banaan yahay, qof isku khilaafsan male dadkii culimada ahaa salafan wa khalafan kuwii hore iyo kuwii dambe kutubta islaamka ku qoran yahay. sidoo kale waxa ku sugan xadiis Sayyid Umar oo khaliifkii islaamka ahaa inuu ku tawasulay Abbas oo nabiga adeerkiisa oo nabiga qaraabadiisa uu yiri Allahumma inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyina, ilaahay waxaan kugu tawasulaynaa oo aan wax kugu weydiisanaynaa fadligiisa nabi Muhammad adeerkiisa salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi. marka waa saas weeye walaalayaal, waxay saxaabadu sameyn jireen, waa wax diinta islaamka ma taqaana, tawassulku ma taqaana ku cad, waa wax kutubta mudawalaadka oo dhaadheer ma taqaana lagu sheegay. kitaabkanu kitaab kooban waaye, su'aalihiisa iyo jawaabihiisa waa saas weeye. marka walaalayaal tawassulka anbiyada lagu tawassulo iyo midka awliyadu waa banaan yahay. barakallahu fiikum wa ahsana Allahu ilaykum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.